aad u xanuun badan بالذات waalidiinta waxaan jeclahay inaad si fiican u dhageystaan gaar ahaan hooyooyinka si fiican u dhageysta Allah idin barakeeyo hooyooyinka qisadan idinkiisa gaar idinku socotay dhageysta insha Allah taala family waxaa jiray Soomaali ma sha Allah multazim ma sha Allah laga yaqaano wadanka laga yaqaano ehelka laga yaqaano family diin leh akhlaaq leh caruurta si fiican u soo tarbiyay dugsi quraan geeyay gabar dugsiga la geeyay waalidku wixii guriga ku bari karana waa lagu baray dugsiga quraanka la geeyay iskuul hoose ka bilowday iskuul dhaxay gashay dugsiyada meelaha la kala geeyay dugsi sare gaartay ama high school ama thanawiya caama ka u taqaanidba ayaa la geeyay tagtay gabadha dugsiga hoose iska fiicneed dugsiga dhaxna way fiicneed laakiin markii gaartay high school ka gaartay dhibaato aad weyn la kulantay semester kood markii bilowday waqtiga kuleel iska ahaa waxay bilowday marka xoogo iskuulka hore u maleynaysi meesha dad badan isugu yimaado wiligeed iskuulay tagtay ma ahan dadka waxa u badnaay oo wadanka u badnaa ama dad cadaan u badnaa sida loo yaqaano u badnaay iskuulkaas markii la geenayay xoogo iskuulka markii maalinta koobaad ay dhigatay ay tagtay isbuuci koobaad gabadha xoogo oo iskuulka waxa maysan jeclaysanin even though way ku fiicneed iskuulad pointideeda way ku fiicneed maalinay marka timid idoo si hooyadeeda u sheegto hooyo waxay aaduna wana go back to that school marba iskuulkaas inuu ku noqdo marka hooyadii marka ma sha Allah aabihi u sheegtay gabadha waa la fariistay markii la fariistay dadkii ma oo nin sheekh magaalada fiicnaa joogay tir sheekh magaciisa sheego way sheegto waa garana marka wuxuu ku yiri marka disaas tahay nimayo gabadhiin iskuulkan ka saar ama home school ka dhigta ama iskuulada kale ay Soomaalidu badan tahay geey almuhim sida loo joogay aabihii hooyadii habeenkii marka waxay tiri waa ka wada hadleen hooyadii waxay soo istaagtay ilaa iskuulka gabadhaas iskuulkaas ma iskuulka ma aadayso hebel iskuulkaas ay aadaan ilmaheeda kaasi ku fiican yihiin iskuulaadkan kala readinga ku xun kana ku xun iskuulaadka kala magaalada ku yaal dhan ee Soomaalidu u badnaayeen ama muslimiinta kala u badnaa hooyada way caysay ma dhiganaysid iskuulkeeda gabadheeda kan ay ganaysa ana controlay ana ilaalina almuhim hooyadii she insisted almuhim waxay tiri abi sidoo faraha igaga qaaday iskuulka sidaan gale اسبوعي لو وافعنا مركوبات المهم وين قبوبه على قلا واتقان markii la bala winter la gala winter markii laga baxoogo kuleel yara bilowda laakiin iskuul kan bilaabay sanadkii koobaad laakiin intaas maskaxdii wax badan ku dhigay hadal ku dhacay way gabadhan xijaabkan wadataa timaheeda muxuu dabuulaysaa tima ma haysata miya timaheeda ma shalaysanin miya qashin may leedahay timaheeda ma bagana gaaladin injir yaqaan injir ma ku jirtay almuhim sida loo waday gabadha xoogo waxay dareentay ciilna ay dareentay xijaabkii nacib wuxuu dareentay timahan ay dabuulayso marmarka qaarkood waxay tir markaan shalay subax waa soo shalaysana si fiican markaan u soo shalay timay kiiskan ka soo bilan xijaaban xira laakiin kiiskan yaraan banaanka u soo dhigay sida loo arktay inay shalaysan yihiin markaas waxa la yiri what are you hiding inside almuhim soo socotay maalin xoogo kuleel jiri ay xijaabka weynaawatay qof meesh jumba what are you hiding why you get dadka dhan soo ma jeed gacmo gaab la soo wada gashtay adigana gacmo gaab ma adigana qab isiisay waana ay tir xijaabka dhamay geed yara madaxii ugu xirnay markaas ay tir I can take her off too waa iska siibi karaan iska siibi tir marka waa iska siibi meesha lan wax Soomaali saarnay ma lahan waa iska siibi cabaayadii riiska ay u jirto oo waa saana ku qurxanta kana ku tahay amaana li kale marka okay marka ma iskuulka sidaan ku tagay aniga xoogo yaxay iskuulkana hal Soomaali kala dhiganay إلى مكس ما ننتعس أنا قفك الصومالي كلامي إيمان وأسكي إلهنا يتري موسن إيمان وفيري هذا حجابك ماشان قوتي المهم موسن ما لدم بحامق عن صدبه خلاص حجابك وين إن نقوله كبح كان يريس كان ماشي عن جشته مديريس عن حرته مركا وحيد ده أو سنة وقرحان تاي ماشي مركو اللي أو اللي بيعت اللي يجي يروح على بالله مركا اللي أمانة على بالله ما لنا مركا قفك على صومالي سكول كله ديجنا يأرك why doing this ويروح تمركز عن محاولة ديسنا your business وحنا كذا مجانا هذا مركا اللي هذا شيء سكول كان كود دعوينا no ده فرو إذا قاعد يترى قفكي المهم سمر كي على جاري سكول دوكسي كان كنا قاني دوكسي مركا كنا قاني كدي بحالة بالله مركا برنامج أو سؤال دينتي هذا نسيج على هذه يترى سؤال معلمين سؤال اللي معلم كان سؤال مكويدين كرا أو كوساب سن حجابك المهم معلم كان سؤال ويدي معلم سؤال شيء موسن قنعين ميل كلام تجي جوجل كان جلي واحد جلي حجاب وحسن جلي وحيابه أو إجعلي سيدين تواواي أم وحن كقرع واواي المهم سكول كاسيدو لو نقضي سمر سكول مو باهني لأن سكول كوقف يعني هذا أوقف يعني مركز سنة كلا بعض لو نقضي سنة لما كلو بلا ضحام بلا مركز خمار كي عادي ننقاته مال محكمة إذا مركز واحد عادي جوري لأن كان كوبحاي خمار كي ينكو حرتي جيت ينجب سيست وابحاي بس كأي المهم واحد جاري ما أكسيدنت جاري مسي واحد نقطة المهم وحالي المركز والدين توا
والله صوع وعي وان حيتين مركز أنا مركي جلباب كان قشتي حجاب كان حرتي المهم بس كي هو دقاقي وان أحمر وحان ده يتر ما أنت حدو والدك وما لها كورن وحان بالله مرك أنا جا بالله من أصدقائه مركز ده مالا فريستي وحان يتر you know what go on إن قاطع واي سانكم مسيجوا الكري أما ماشان أنا أسليد كهذا أو ليجويو أما إن كلا صبح يعني جلباب كوينا سوقاتي مرك أنكو إمادين dadkii sidii hore liicayna ka daranaa lii bilaabay in liicaaya dan meesha aan ku sii maalintaas wixii ka dambeeyay aan waxaan ku gaartaa ama hooyadii ay aragto ama aabbahay ay aragto I do not care markaan bas soo kor waa iska siiba markaan bas soo kor waa iska siiba sanadkii labaad saas uu ku dhamaaday sanad soo socda family Soomaaliya meeshu day iskuulkan isla aadayna family kale marka ilmihim ma wada hadan hooyadii ma hooyada loo sheegay ilmihim hooyadii wixii tir waxa ka dambeeyay ana iskuulka ku geynaa bas kama raacaysid ما يبسكي راه ما يبسكي مراعس ما يبسكي راه وابحي بورصدان قشتي حجاب كان قشتي سيدان كو قشتي marka wixii tan xaajab ku jir waa diiday marka inaan xijaab ku tusooyay marka dam wixii tir lookar oo iskuul kaliya lookarkayga ku xareystay caruur deerad waxay qaris waa qarinaysa lookarkan ku xareysay guriga xijaabkiigan ku baxasa u socday meesha lookarka ka bilaawa iska bedela hooyadii waxay bilad boorsadii inay baarto wax waa ku oo jeedina boorsa maxaa fiirnaysa waa ka boorsadeeda المهم hadalkii waa batay marka inaan waxaan Soomaaliya marka waxay go'aansatay marka iskuulka inay timaado waa loo ogolaaday inay soo gasho anigu saas waa tiyaartay oo geedkan yiriska wato waa timid hooyadii meesha dhaxdiisa ugu qaylisay ma way canaanatay waa dhibsaday ilmihi oo soo fiiriyeen xataa principalka dadka meesha joogay jiday hooyadii waa la fiiriyay stop doing this waa la hadlay المهم guriga imaan anigu xanaagsan marka maxaasan u sameynayay inuu wadaan dhaayay xijaab ma barabi aniga ma bixina bema idin sheegay masruum ma barabi geedka inaa xirto الله بالله واحرنيس محرس أنا سكول ما بقى المهم أبي مركي هويدا هدنا سبحانه أنا هويدا أنا الله يابي أو علمي هذا أجعل الدنيا دي إني هلان more than آخرة هذا أبي مركي هذا إساس خلاص هوم سكول هلا قدي أم جروجو تحيت رمي هوي حيت المهم هويدي وحي بلاد إني بربرد واسو استاجوا ديدي هاي حيت السكول مركاك أنا كوجينا كحرق مركاك سو بحث لك حلبة جاب كوير حرنيسه المهم مركز هويدي إيه أقرأتي تروحان بالله مركنا حوجو كسي درو المهم سنة جودن بيساي سكول مركن graduation كي سمينا حتى حجاب مودن college كان جاري وكسي داري حجاب كواسي بي تميه بنان كان صادقتي سروالان قاتي فينا المهم ماشي جودن بيسانتي هويدي يجستو حيتروا دباتا إماتي أي وحياة بدن حتى هويدي أبي صاب أو نسكت عدعين المهم جبدو حيتري وسوينا ذي وديدي حجاب كنا حرتو جامعة حجاب لأنا كودكتي شقة بالله شقة مركان بالله حوجو قف أنسل شقينيني قفكي مركا أسكهل قفك مركان أسكهلنيني السجابة إيجاسي درنا يتري ما قرنا قفك سمها وسي وحكا نقدين قف كلي صاحب النقدين أو المهم قفكي أو اسبنا قاني ملتزم ونقد قفكي مركا بالله دينتي وحي إيجاشي شيء دينتيان سيدو كسوقاتي دينتيان الحمد لله حجابك وكسو نقضي markaan ku soo noqday kadib waxay tiri hooyadii aabbahay ninkan iga doontay iga xataa igu yaa maasha Allah gabadheedu waa fiican tahay xijaab ku soo noqday ninkii waa isguursanay caruuray dhash waxay tiri gabadheeda ilaahay markiisa xataa waqti sin xijaab maysan gaarin oo dhowr sano ay jirtaa 7 sano iyo 5 sano dhowr sano ay jirtaa almuhim markaas ay u tiri maalin just waxa waaye waa aron wani xijaab ma rabi inaan qaato kan ma rabi inaan sameeyo kan I don't like xijaabki waan naxay marka hooy xijaabka waxaan bilaabay marka xijaabkina aaga sheekay qof aan la tashay sidaan ilmaha wuxuu fahamsiin karaa marka waxaa lagu yiri tiri diinta inta yiriin diinta bar ilmaha gabadheedu waa soo weynaatay waxay soo gaartay ilmihim ba wali dugsiga hoose ku jirta la xoogo waa soo weynaa waxay bilaadeen inay maalin marka iskuulaadka waa la qaaday waa la warwareejiyaa ma garanayo waxay tiri waa la qaaday iskuulka la qaaday meeda qaaday ma hooyada qaaday ma graduation ajiri iskuulka la tirkiis ilmihim gabadheedii waa tagtay iskuulka tagtay tiri markay tagtay waxay aragtay marka sawirka hooyadeeda laan iskuulaadka waa taqaana caruurta sawira laga qaadaa oo xijaab wadana meesha u saaran ay aragtay gabadhu waa soo noqday waxay tiri hooyo maxay ugu dheysay xijaabka xir adii maadan xijaaban jirin waan marka saas u tiri maxaa ka wadaa adii baa ku soo arkay maadan xijaabin ilmaha xijaab ugu dhehaysaa waan naxay tiri waxaan sameeyay gar markaas hooyo waxaan ku sheegan gar waay markii dambe waa wada firiisanay aniga ninkii wada firiisan waxaan ku aansaday markii aan si tartiib aan u qancino المهم قصدان وقيبة كلام هو يجران لكن أنت أقومهم سن أنت أسوأ قصدان بوينتين أو شيء وهدف كم شيء مركز دور قضب واحد قضب كوبات وحيكون صعوتها والدين تيكون صعوتها والد وعروت هذا إنجليش رايقة برناي ماثن ويبرنايين ساينس ويبرناي وحول ويبرنايين تسمعني هذا هبرين معهن إفاديقات كفرح معهن كود ذال لكن وحومهم سن لو باهين كود ذا شتو حاوي دينته
hooyadan hadda Soomaalida gabadheedu waxay ku dadaalaysay inay iskuulkaas gaalada dhigato ama iskuulkaas horumarka ay dhigato ama iskuulkaas cadaanka u badan yihiin ay dhigato waa isnaqaana laakiin si kaas ugu dadaalayso ash meeshta waxa dugsiga ma ugu dadaalayso laga yaabo in haatira dugsiga inuu ku dadaalaysay طيب dugsiga ku dadaalayso dugsi ana dugsi ma geynaysi mise dugsi si iskuulku fiican u fiirinayso dugsi fiican dugsiga ma kala fiican hawa kala fiican yihiin marka hooyooyinka waxa rabaa inaan dhaho ilaah laga baqo ilmahan wax yaraantooda ku soo qaata maskaxdooda waliye ku jiraysa hooyooyinka Soomaalida si fiican dhageysta Allah idin barakeeyo arintan idin lagu qufulay oo liira iskuulkana fiican iskuulka cadaanka u badan yihiin fiican ka fiican kan kale example aan idin siin hadda Columbus aan deganahay magaalo leeyahay hooyooyinka qaarkooda meel waxay degayiin oo iskuulka Columbus aan ahayn maxaa iskuulka Columbus wuxuu yaa ku sheegay ma taqaano iskuulka cunugan hageyn Islamic school hala geeyay maya maama aan wax aqrinin aan qorin laga yaabo inaysan wax wiligeed iskuul u kala bilay ilmaheeda aan caawin karo waxa ku leeyahay ma ilmihii waxbarashadooda gadaali u dhacan sidee ku ogaatay adiga maadan imtixaamin iskuulka laga soo dhacan sidee ku dhacan waxa way narrative waxa jiro oo iskuulaadka in dadka laga sii fogeeyo loo fogeeyo iskuulaadkaas kale loo fogeeyo ma jirta iskuulaad xun ha waa jiraan Islamic schoolka qaarkooda qaar qashin ma jiraan ha waa jiraan laakiin waxa loo baahan yahay laba dara mid door haday tahay diinteeda u door Allah ku barakeeyo dugsiyadan rabay ay naftarkooda inaan dhaqolo dugsiyada macallimiin khayr Allah idin siiyo ilmaha diina barooysin quraana barooysin laakiin aakhira ilaahi wuu ku weydiina cunugan quraanka ku garaacaysa ama cunugan quraanka maskaxdiisa xog gelinaysid ma bartay aqeedadii ma bartay salaada ma bartay xijaabka ma bartay mise inta laba saac inay soo fariisto macallinka wariyaha ka soo bax ma ka soo bixis baxastaag xaq istaag u baatiraaha culimada waa mas'uuliyad ka saaran ummadda in la wacyi geliyo oo laga hadlo arrimaha muhiimka waa loo baahan yahay aabaha naftirkiisa waajiba ku saaran hadaa aragti xaaska inay qalad yacina tiraahid waaye guriyan badbaadin soo qof aluminaysa xaaskaaga haday qaldantii yaa ogtay diin inay ku qaldantay yacde adi haday kugu qaldantay ama guriga ku qaldantay kala ha markii adi kugu qaldantay yacwa tiraahay markii diinta ku qaldantay maxay aadan u dhiheen arrimahaas aan iska fuujignaan Allah idin barakeeyo jazaakumullahu khayr barakallahu fiikum faa'iidooyinka kale idinka soo qor Allah idin barakeeyo ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu caruurta noo xifdiyo ilaahay caruurta noo barakeeyo dambigeena Allah dhaafo nasal Allah alazim waalidiina aan kulligeena caruurteena waxaan jeclahay inay noo noqoto baariin saalixiin noo noqoto caruurta lagu dadaalo waxna hala baro jazaakumullahu khayr barakallahu fiikum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته